gudoomiye ku-xigeenka degmada golaha deegaanka madaxa shirkadda samtel saraakiisha ciidamada Puntland iyo shacabka degmada Carmo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanta islaamka dib runtii caawi farxad weyn bay noo tahay degmada Carmo shirkadda samtel ku daafuro barnaamijka oo lagu magac daray mahadsanid macmiil oo Puntland oo dhan ay degmada number 1 Carmo ku daafuray. sharaf weyn bay noo tahay anagoo shirkadda samtel ama dahabshiil group inay tahay shirkad caalami ah oo runtii ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad adeeg wanaagsan u haysa. anagoo taa ixtiraamayna waan ka soo qayb galnay golaha deegaanka gudoomiye iyo dhammaan bulshada. sharaf bayna noo tahay runtii inay ku daafuro, qiimeyn weyn bayna noo tahay. waan uga mahadcelinaynaa shirkadda. intaa kadib waxaan rabaa in laga faa'iidaysto adeegyada shirkadda. waxaan ugu yeerayaa bulshooyinka degmada inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan. intaa kadib waxaan rabaa inaan ku daro shirkaddu waa shirkad caalami ah oo runtii waxyaalo kala duwan dadka Soomaaliyeed runtii kala shaqeysa. waxaan rabnaa inay nagala shaqeyso macaamiil u isticmaal adeegga dahab dhammaan baahiyaha ganacsiga ku iibso lacag dirid ku shuba ribaad iyo internet dhammaan wax kasta oo aad isticmaal lacageed uga baahato